رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وموضوع أن أقول لنا الطاقات الشبابية ما أودها لنا يرنمو وحلقة أفراد وحنقول لنا سدح قضاب oo ciwaankoodu yahay waxyaabaha xoojiya awoodaha dhalinyaranimada ikhwaani wa akhawati saddex arrimood ba waxaan oran karnaa awoodaha dhalinyaranimada aad bay u xoojinayaan saddexda arrimood hadii la waayana runtii qofka dhalinyarada ah awoodiisu way kala dhantaalmaysaa ama maxaa la yiraahdaa awoodiisu aad bay u daciifaysaa arinta ugu horeysa aan raba inaan iraahdo waa xoojiyaha koowaad ee awoodda qofka dhalinyarada ah waa al-ilm waa aqoonta iyo cilmiga qofka dhalinyarada ah uu xambaarsan yahay ahbaabi fillah arinta cilmigu waxaan oran karnaa waa waxa qofka bini aadamka ah hadii uu haysto uu kala garan karo saxda iyo khaladka uu kala garan karo wadada haboon iyo wadada laga haboon yahay waxa la cilmigu waa saaxiibkaaga koowaad ee kugu haga wadada wanaagsan ama wadada toosan ku kala saara wadada xaq ah iyo wadada baadilka dumuuxa iyo hanka mustaqbalka kugu jira wadada ku haboon ee aad ku xaqiijin karto dumuuxaaga ama hankaagana kugu hagaya cilmigu wuxuu naga dhigaa dad samayn kara hawl gudasho wanaagsan oo xaqiijin kara ahdaaf waaweyn acmaashooda wadiifiga marka loo fiiriyo wuxuu naga dhigaa dad awood u leh inay xaliyaan mashaakilkooda shaqo ama mashaakilkooda ummadeed cilmigu wuxuu nagu hagaa waxa saxda ah iyo dariiqii saxda ah oo aanu ku gudan lahayn si aan u soo saarno natiijo sax ah dadka dhalinyarada ahi hadii ay aqoon waayaan oo noloshoodu ay noqoto nolol jaahilnimo ku dhisan waxa badanaya meel ka dhacyadooda waxa badanaya inxiraafaadkooda iyo qalloocooda iyo inay hadba wadada saxda ah inay ka lumaan waxa isaga dhex darsamaya wixii saxda ah iyo wixii khaldanaa wixii xaq ah iyo wixii baatilka ah qofku dhalinyarada ah hadii uu aqoon waayo oo uu jaahilnimo la nool yahay waxa ku adkaanaysa wixii uu ku haminayay in uu yaani mustaqbalka inuu gaaro wadadani ma tahay tii loo mari lahaa mise maaha inay u kala socnaato ayaa ku adkaan kara qofka dhalinyarada ee waxa la yiraahdaa yaani cilmigu ka maqan yahay jaahilnimada la noolay mar walba wuxuu khatar ugu jiraa shubuhaad wa shahawaat waxaana la yiraahdaa waa labada arrimood oo qofka bini aadamka ah waxa weeye khadka ka rida ama inuu macaaso ku dhac keena ama inuu xumaado kaalintiisii nololeed uu gudan waayo waxa sababa in noloshiisa shubha gasho ama in noloshiisa ay shahwa jiidato waxa xaqiiqa ikhwaani wa akhawati dadka dhalinyarada ah hadii ay aqoon helaan waxay awood u yeelanayaan inay ka shaqeysiyaan awoodahoodii dhalinyaranimo si ay cumrigooda uga faa'iideystaan waxa u suurtagelaysa inay soo saaraan halabuuro fara badan oo ay nolosha ku soo kordhiyaan waxyaabo fara badan oo halabuuro ah oo nolosha hagaajinaya ama nolosha fududeynaya waxa u suurtagelaysa in ay xuluul u helaan mashaakil fara badan oo noloshooda haystay taa bedelkeeda waxa xaqiiqa jaahilnimadu inay tahay cudurka koowaad oo baabi'in kara awoodda qofka dhalinyarada ah yaani dumun kara dumuuxii
iyo hankii mustaqbaliga ahaa ee qofkan dhalinyarada ahi uu lahaa marka masalada koowaad aan raba inaan iraahdo waxay xoojinaysaa awoodaha dhalinyaranimo waa aqoonta marka fariintu waxa kale ma aha waxa weeye inaanu wax barano intaynu dhalinyarada nahay oo aanu ka faa'iideysano aqoonta oo aanu xambaarno yaani macrifo iyo mahaaro xirfad iyo aqoon inaanu xambaarno arinta labaad oo qofka dhalinyarada awoodihiisa xoojin kartaahi waxa la yiraahdaa waa al-azima waa sabar iyo dulqaad azimada waxa lagu fasiraa baa la yiraahdaa waa dulqaadka qofku uu u leeyahay inuu ku sugnaado go'aamadii uu u qaatay hanka iyo dumuuxa iyo himadii qofku mustaqbalka u lahaa inaanu noqonin qof quusta ilaa uu xaqiijiyo yani dumuuxii iyo hankii iyo himadii u xambaarsanaa ayaa waxa la yiraahdaa yani al-azima azimada iyada ah oo macnaheedu yahay markaa qofku inuu ku sabro oo ku dulqaato يعني كفتنتا iyo culaysyada iyo dhibaatooyinka uu la kulmayo intii dumuuxii iyo wahankii wixii mustaqbalku ku haminayay inuu xaqiijiyo wadada uu ku sii joogo yani inuu u dulqaato waa arinta labaad oo qofka awoodihiisa dhalinyaranimo inuu ka faa'iideysto runtii xoojin karta waxa la yiraahdaa yani azimadu waa dhufayska qofka yani bini aadamka haduu galo aan laga bixin karin yani waa dhufays aan laga furan karin ciidan kasto ku soo weerara hadii aad azima leedahay waxay yiraahdaan يعني العزيمة سلاح الرجال يعني رجع هبك ugu adag oo ay helaan waa azimada iyo adkaysiga iyo dulqaadka iyo طموحاتkaaga iyo hankaaga iyo himadii aad lahayd intaad ka gaarayso inaad u sabarto aad u dulqaadato الحقيقة يا احبابي صبركو وحو شرطي ويهي قوشة قفول بيه بني آدم لهذا يقولون هدي دونيسو إناد ملب صوج بسطو وحاكسو كيا معيدة الشنيدة دانت كصبري كرينينا الشني كوقانينتو ملب نسوهي لميسد كذلك يقولون النعيم لا يدرك بنعيم حيدان يعني حداد دونيسو النعمة يقول مستقبل كينات جارتو كجاري ميسد نعمة كله بقدر رفعتود ودل قاضتود والصبرتود يعني هرج يمرج أمرته مركا كدي بصورة قال النعيم كي النعمة مستقبل كينات جارتو مركا هذا ما أنت إسكان نعمة يسنا إسكان نصينا قبوا إسكان حسلانه يعني ظروفته هذا إعادة هاي إن هذا حاول أنت إسكان سعوت مستقبل كناد نمعكم ولا تاهي ولا ما هرمود الإسكانين بحال هذا قفل بوهان له إذا يراه مستقبل كوحون وحقيقي الدنيا حنون باكه الرأي وباهن إنه كصبره وكد القاطع وليه وحال هذا كفتنتا إياه عليسكا إياه حنونكو وبصاد دونتا دت كهنكو السرية ومستقبل كميل فقص على هذا وحيد هذا العثرات يعني تراود أهل العزائم تراود أهل الإرادة تذكر ربيتان هذا مستقبل كله مع الزيمة ده يو إن الدول قاطن لفلنا أيو وحنا تذكر كفتنتا أيو يعني مشاكل كي تحديات كي جالن جسكو ويسور هالسدان وقف كنوع عصيمر والبا إنه كفّ يو وإنه كتلقى مجرو قف جوليستي أو دور كي كالنتي نرشوا كلها كجوليستي إلا وصاد صبري وصاد دول قاتي حنونا فربنا دبر كيو سورتي إنا نمرك كصبرنا دتك أنا دنيرة هي guusha mustaqbalka aanu ku haminayno wadada aanu sii marayno xanuunada naga imaanaya iyo culaysyada iyo mataacibta aanu kala kulmayno waa mid kamida waxyaabaha xoojinaya awoodaheena dhalinyaranimo markaanu azimada iyo dulqaadka weyno waxa dhici karta markaynu ardaynahay oo aanu wax baranayno inaan dhameystiri kari weyno mashwaadkii tacliimiga ah ama marxaladii waxbarasho aanu ku jirnay waxaan hadda dul qaadan karin lidaalika dadkan dul qaadan oo dadka inta badan marxaladaha waxbarasho markay wax baranayaan hadba waxbarasho ka kala gooday hadba waxbarashada maxay meel uu ku joojiya markaynaan sabar iyo azimo iyo dulqaad lahayn haddaan duulaan iyo dagaal iyo haddaan ku jirno hawl military mashwaadkii yani duulaanka ma dhameystiri karno de xanuun iyo hawlaha ka imaanaya markaan dul qaado weyno waan iska soo laaban doonaa markaynan azimo iyo dulqaad lahayn suurtagal maaha in aanu meel marino waajibaadka inaga nasaarnaa qayb kamid ah xamili kari waayi doonaa bal waxaan oran karnaa haddaynan sabar iyo dulqaad isticmaalin dadkeena dhalinyarada ahi waxba naga xoog badinaya almaladhaat
والهوى يعني هودينا iyo rabitaankeena iyo macmacaankeena adduunyada ayuun baan najiidanaya marka dambana waxa weeye nolosheena diineed iyo nolosheena akhlaaqeed iyo nolosheena waxa weeye yani kartideena wax qabadsi oo dhan ayuun baa baabaaya waxaan u baahnaa marka waxa weeye dumuuxa iyo hanka mustaqbaliga ee nagu jira ee ah inaanu meel sare gaarno inaanu ummadeena kaalin u qabanno inaanu ummadeena waxa weeye yani manhaj nololeed ee dhaqaale ee siyaasadeed ee waxbarasho ee arrimo bulsho inaanu gaarsiino ah wuxuu baahan yahay in aanu dulqaad inaanu u yeelano arinta saddexaad ee xoojin karta awoodaha qofka dhalinyarada ah waa inuu marka horeba han sare inuu leeyahay culul himma inuu han fiican inuu leeyahay waxa la yiraahdaa dadka dhalinyarada ah waa dadka ugu mudan inay han sare ama meel fog inay ka shaxaan qofka dhalinyarada ah ama rag han noqdo ama dumar han noqdee waxa la gudboon inaanu waxyaabaha ka fakaraya iyo meeluhu higsanaya meel iska liita oo hooseeya inaanay noqonin waxa la yiraahdaa han hooseyntu awoodaha dhalinyarada waa cadawga koowaad ee dila marka qofka dhalinyarada uu han waayo uu hami waayo uu meesha u socdaayo meel iska liidato iska hooseysa ay noqoto waxa xaqiiqo ah يعني أودي سيد الله يرنمو وين نمنا يعني ذلك يعني أركتين دتك رب سبحانه وتعالى قرآنك يعني وقول ليلا دتك ميلها هوسا كشحة إلهي سبحانه وتعالى وقول ليلا الله سبحانه وتعالى وحليه وراحت في لسان دتك وحا كمذا من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني الدنيا دتك وحا كمذا مدي انتو إلهي قعمه وتاكتو لها يا إله الدنيا وحفي عن كابري الله سبحانه وتعالى وحليه مدك الدنيا وكريه ويديستي ده هنكيسي هميجيسون بابليتي الدنيا بكاء كاضي ما له في الآخرة من خلاق آخرة وحبا نصيب يا كالين يا وناق آخرة مهليو إلهي وحليه ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بل فيري ولا رب سبحانه وتعالى ذلك وحا كلو كجرا قف لها يا إله الدنيا وحفي عنبان كابري يا oo wax fiican baan ku weydiisanayaa aakhirana xasanaya wanaag baan mar kale ku weydiisanayaa iyana cadaabka iga badbaadiso marka labada qofood labaduba ilaahay bay wax weydiisanayaan yani ilaahayna subhanahu wa ta'ala yani wax walba uu awoodi kara wax walba uu weydiisto uu ku siin kara marka adoo yani aakhirada adduunyada ilaahay wada weydiisan kara hankaaguna adduunyada oo kaliya dhaafi waayo waa han runtii dilaya awoodahaagii dhalinyaranimo baabiinaya haddii aanu yani hankeenu xumaado ama himadeenu ay liidato waxa yaraanaya yani kadxigeena iyo ijtihaadkeena iyo dadaalkeena iyo yani hawl qabadkeena iyo dhafarkeena iyo soo jeedkeena ayun baaba aad u yaraanaya lidalika yaqulun yani al-insan yajid ويكدح بالقدر الذي يطمح حين قفك بني آدم هذا وحو وردا أو الرعلية أو الدلالة أو الرفاضة أو جهد بحياة هذا أنتي وهنكي سودانيا معناه عويه دتك هنكو اللي تاي دلال بدن ما بحين كران وعايز كبدي هي هذا هن ونكسن يعني هدي آن هلنا واحد بدن بانو قبان كرنا لأنه دلال بدن أيون بانو بحين كرنا وحال يعني عقلك يعني قفل بو إذا جيسني عقلك سوفهم كراب قفك دونيا maalintii inuu shaqeeyo مثلا dad ganacsi ka shaqeeyo uu soo saaro kun يعني وكددال بدن yahay qofka isna shaqeynaya raba maalintii inuu soo saaro 100 marka يعني طموحا iyo hanka iyo himada iyo meesha qofka targetka waa ayaa runtii labada qofood kala dadaal badnaysiinaysa waxaan ku gabagabeynayaa ikhwaani waa akhawati si awoodaheena dhalinyaranimo ay awood u yeeshaan waxaan u baahanahay inaanu aqoon yeelano inaanu aziimo iyo sabar yeelano inaanu himma caaliya iyo hansare inaanu leenahay haddaan inta weynana waxa la filanayaa awoodaheena dhalinyaranimo inaan ka faa'iideysan teena shakhsigaana inaan wax badan u tari karin mid bulshadeena wax badan inaan ka qaban karin halkaas baan xalqada ku gabagabeynaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك